السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan daafaha iyo dacalada caalamka Axmed Baqaya ayaa idinku soo laabtay muddo badan waynu kala maqnayn balse hadda hawada ayaynu ku wada jirnaa oo halkan ayaynu si toos ah isaga daawanaynaa intaan wararka aan maanta idin hayo iyo dhacdooyinkii ka dhacay dalka Jarmalka iyo warbixinooyin xiiso leh aan barnaamijkeena maanta inoogu daafurin waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaalida Jarmalka caalamka iyo guud ahaan asxaabta sharafta qiimaha iyo qadarinta iga mudan ee halkan iga daawada dabcan maalmihii u dambeeyay hawada iskumayno arag intiina badan waxa isweydiinaysaa ku maqnaa iyo barnaamijyo aan idin soo sameeyay ujeedo mawduucyo aan kaga hadlayo waxaan ku maqnaa ayaan barnaamijyadeena soo socda barta YouTube-ka Axmed Baqaya idin soo gelin doona insha Allah maalmaha soo socda warbixinooyin iyo waliba barnaamijyo kala duwan ayaynu ka dhargi doonaa marka haddii aad barnaamijyadaas xiiseynaysid booqa barta YouTube-ka Axmed Baqaya subscribe da alarmigana furo halkaas ayaad marba wixii cusub kala socon doontaa insha Allah waan idinka raali gelinayaa inaan maalmihii aan soo dhaafnay aan si toos ah wararka idinku soo tabineen dabcan wararka qoraal ahaan ay idinku imanayeen dhanka page-ka Somali News in Germany iyo page-ka Axmed Baqaya labadaba marka mararka qaarkood inaan anigu mashquulo way dhici kartaa binaadan baan ahay sidii oo kale warbixinaha aan warkeena maanta ku falanqeyn doono insha Allah waxa ka mid noqon doona xaaladda coronavirus ee dalka Jarmalka tiradii maanta la diiwaan geliyay sidoo kale waxaan ku eegi doonaa xaaladda madaxda dalka guud ahaan Angela Merkel iyo madaxda maamul goboleedyada oo xaaladda coronavirus ka walwalsan kulan Angela Merkel iyo 16 maamul goboleed ay qaban lahaayeen isla markaasna looga hadli lahaa xaaladda guud ee dalka Jarmalka oo maalinta Jimcaha balantiisu ahayd ayaa hore loo soo qaaday lagana dhigay maalinta Arbacada kulankaasi iyo waxyaabaha lagu falanqeyn doono ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa in dalka bandow la gelin doono oo aanu iyada lafteeda maalinta Arbacada ogaan doono ayaan sii falanqeyn doonaa waxyaabaha warbaahintu saadaalinayso iyo sida ay macquulka u tahay inay u dhacdo sidoo kale waxaan eegi doonaa wiil Algerian ah oo Maxamuud Islaam la yiraahdo oo hore aad u maqasheen in lagu dilay gudaha dalkan Jarmalka ayaa waxa la helay gacan ku dhiglihii dilay sababtii uu dilay ilaa hadda baaritaan ayaa ku socda laakiin halkii uu ku dilay iyo qaabkii dilkaas u dhacay ayaan barnaamijkeena ku falanqeyn doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa siyaasi weyn oo la yiraahdo Oberman oo ka tirsanaa siyaasiyiintii waaweynaa dalkan Jarmalka muddo 30 sano ka badan siyaasadda dalka ka shaqeynayay ayaa isaguna geeriyooday ayaan barnaamijka laftiisa ku falanqeyn doonaa jaamacadaha dalka Jarmalka iyo iyaga laftooda eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu barnaamijkeena maanta ku eegi doonaa marka la soo dhawaada saaxiibayaal kana mid noqda saaxiibada halkan ku xiran horta idinma sheegin maanta taariikhdu inta tahay waa 26 bishii tobnaad 2020 waa maalin isniin dabcan sabti axad isniin isniin weeye af Soomaaliga waxyaabo kale isniinta lagu ma jiraan isniin talaadada oo baa talaada iyo salaasa la kala yiraahdo laakiin isniinta isniin le waaye waa tahay wararkeena ayaynu gelaynaa saaxiibayaal mar kale horta maxaa marka sid ka soo dhaweynaa waxba soo dhaweynaa iska fadhiyo si daawado okay tirada guud ee la qoray ama maxadka rubadka maanta uu daabacay in xanuunka coronavirus dadka uu ku dhacay maanta la diiwaan geliyay ayaa waxa ay dhan yihiin 9649 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus ah dabcan maalmaha sabtida iyo axadda tiradu hoos ayay u dhacdaa sida ogeydeen toddobaadkii hore 11000 ay tiradu sare u dhaafaysay maalintii sabtida iyo axadda hoos ayay tiradu u dhacaysay sababtoo ah wasaaradaha caafimaadka ee gobolada iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka Jarmalku inta badan ma shaqeeyaan sidaa daraadeed tirada guud qaarkood ma soo gudbinayaan sidaa daraadeed lama wada helayo tirada dhameystiran maalinta isniinta ay qaarkood soo gudbiyaan waa sababta ay maalinta talaadada iyo arbacada ay tiradu kor u kacaysaa iyadoo oo ay ku jiri karaan tirooyinka la diiwaan geliyay maalinta sabtida axadda iyo isniinta marka maanta tiradu waa 9649 oo ka hooseysa tiradii xanuunka coronavirus taa micnaheedu ma aha xanuunka coronavirus hoos ayuu dhacay ee toddobaadka awgii ayay tiradii oo dhameystiran la soo gudbin Angela Merkel ayaa cabsi ka qabta xaaladda maamulada ayayna la kulmaysaa hal go'aan ayaa la wada qaadan doonaa sida kulanka la filayo in laga rajeynayo in kulankaas ka soo baxo sidoo kale xukuumadda dalka Jarmalka ayaa waxay sheegtay in cabsidii badnayd ee xanuunka coronavirus laga qabay lahaa xanuunka coronavirus waa khatar dadka ayuu leenayaa taasi oo caawin badan waqtigii hore ka geysatay
in tiradu aad u yaraato oo waddanka Jarmalku uu aad uga duwanaado wadamada kale ee sida Talyaaniga iyo Spain iyo France oo kale oo xaaladdu ay aad u xumayd inuu Jarmalku ka duwanaado waxay ahayd dadka Jarmalka ayaa waxay cabsi badan ka qabeen xanuunka coronavirus balse hadda cabsidii ayaa hoos u degaysa dadkii ayaa qaar badan oo ka mid ah ay aamineen inaanu xanuunkani ahayn wax dhibaato badan keenaya isla markaasina aanu dhib badan ku hayn taas ayaa waxay sababtay in tirada xanuunka coronavirus dadka uu ku dhacay ay aad u farabadatay isla markaasina tiradu aad u korodhay isla coronavirus ayaan ku jirnaaye maalintii Angela Merkel ayaa waxa ay kulan kula balantay 16 maamul goboleed maalinta Jimcaha ah ee toddobaadkan kulankaasi oo la filayay in lagu soo hadal qaado sidii dalkan wax looga bedeli lahaa xaaladiisa iyo qaabkii loo xakameyn lahaa xanuunka coronavirus Angela Merkel ayaa kulankaasi tiri maalinta Jimcuhu waa maalin fog marsaa daraadeed ma sugayno hore ayaanu soo dhigaynaa waxaana laga dhigay maalinta Arbacada ee toddobaadkan aynu ku jirno waa maalinta berri maalinta ku xigta ayaa kulankaasi dhici doona kulanka ayaa waxa lagaga hadli doonaa arrimo fara badan oo ay ka mid noqon doonaan isla markaasna aad farta loogu fiiqayo inay Angela Merkel doonayso in gebi ahaanba dalka Jarmalka oo dhan ay bandow ku soo rogto haddii aanay taasi suuragelayna in qaybo ka mid ah dalka Jarmalka bandow caadiga lagu soo rogo sababta waxa ay sheegaysaa in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso isla markaasina coronavirus xaaladiisu ay aad u xumaanayso waxaa la doonayaa in maalinta Arbacada duhurnimada Arbacada 13 ama 1 duhurnimo 16 maamul goboleed iyo Angela Merkel ay kulmaan kulankaasina lagu falanqeeyo qaabkii hal ujeedo ama hal mowqif looga wada gaari lahaa sidii xanuunka coronavirus loo xakameyn lahaa bal qaabkee la yeelayaa sababta maamul goboleedada khaasatan gobolada ayaa aad ugu kala duwan oo gobolada ayaa qaarkood xaaladooda ay aad u xun tahay qaarkoodna xaaladoodu sahlan tahay qaarkood ayaa doonaya in dalkoo dhan bandow lagu soo rogo qaarkood ayaa doonaya in magaalooyinka kaliya bandow lagu rogo sharciyo kala duwan ayay soo rogeen waxaa jira magaalooyin fara badan oo ka mid ah magaalooyinka dalka oo xaaladooda ay xun tahay sidaa daraadeedna laga sameeyey in askar fara badan ama ciidan fara badan magaalooyinka lasoo dhoobo isla markaasina sharci looga dhigo inuu qof kasta oo gurigiisa kasoo baxay inuu maaskara xidhan yahay banaanka ha jooga bas ha raaco meel kale ha marayo meel kasta u marayo intuu gurigiisa ka maqan yahay inuu qofkaasi maaskara xidhan magaalooyin badan sharci looga dhigo taasi oo magaalooyinka qaar ay go'aanadaasi qaateen sidoo kale waxaa jira go'aano fara badan oo kala duwan oo maamulada iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka Jarmalku gaadheen marka Angela Merkel waxay doonaysaa in go'aanadaas lagu xakameynayo coronavirus in la isku soo ururiyo hal mid oo ay ka wada siman yihiin guud ahaan dalkuna lagu dhawaaqo marka bal wixii qodobadaas in dalkoo dhan bandow lagu rogi doono sidii bishii saddexaad ee sanadkan hadda ku jirno dalkoo dhan bandow lagu rogayo kale inay dhici karto iyo in kale maalinta Arbacada ayaan ogaan karnaa haddii magaalooyinka qaar lagu soo rogayo bandowna isla Arbacada ayaan ogaan karnaa haddii ay jiraan waxyaabo kale ama siyaabo kale oo loo xalinayo oo ay 16 maamul goboleed iyo Angela Merkel ay isku waafaqaan ay dhici kartona maalinta Arbacada ayaan si toos ah halkan idinka soo gudbinayna haddaad warbixintaasi jeceshahay inaad la wadaagtid asxaabtaada sidoo kalena aad doonaysid inaad maalinta Arbacada ogaatid waxaa dhici kara si aad uga sii gaashaamatid haddii bandow la gelayo dabcan haddii magaalada la gelayo ama haddii guud ahaan dalka Jarmalka oo dhan la gelayo inaad talaagadaha sii buuxsatid sidii dadka qaarna aad muus talaagada kasoo buuxisid kabtan way jirtay xilligii hore bandowga la gelay ayaa waxa dhacday in sawirradii social media la isla dhexmarayay waxa ka mid ahaa nin talaagadiisa dhan muus ka soo buuxiyay bilow ilaa dhammaad muus baa ka buuxay dadka qaarna waxyaabo kale ku gurtaan qof kasta wixii markaa isagu xiiseynay isleeyana ka go'in ayuu ku gurtaa halka cadaankuna ay maxay ahayd magacooda barka suuliga loo isticmaalo ayaguna ku gurtaan waa tahay qodobkaas intaas ayaan kaga gudbaynaa waxaan eegaynaa warbixinta xigta Maxamuud Islaam oo 22 jir ah una dhashay dalka Aljazaa'ir ayaa qoyskiisa la deganaa ayaa waxa lagu dilay dhawaan dalka Jarmalka ninkaasi waxa uu dhiganayay jaamacadda Lübeck gobolka Schleswig-Holstein marka ninkii gacan ku dhiglihii ninkaasi dilay ayaa gacanta lagu soo dhigay haddaba ninka dilay ayaa waxa ninkan dilay Maxamuud Islaam ayaa waxa nin ay saaxiib yihiin bal talaab uu wacay kadibna ballan ayuu qabtay ballanta ayaa wuxuu kula ballamay meel carruurtu ay ku ciyaaraan halkii markuu ugu yimidna waa ku dilay muddo dheer ayay boolisku raadin ku wadeen kulli warbixinooyinkayga hadda daawatay oo ku arki kartaa markii la dilay iyo ninkii dilay la raadinaya marka ninkii la dilay ayaa la soo helay
booliska ay gacanta kusoo dhigeen. Ilaa hadda ma cadda sababta, balse baaritaan ayaa ku socda. Wixii kasoo baxay insha allah wararkeena dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa iyo sababtii uu ninkaasi u dilay ninka. waxaan eegi doonaa warbixin kale oo muhiim ah oo warbaahinta dalka Jarmalku ay maanta aad u qaada dhigaysay. waa siyaasi magaciisa la yiraahdo Obermann oo ka mid ah siyaasiyiintii waaweynaa ee dalkan Jarmalka. muddo 30 sano ayuu kasoo shaqaynayay siyaasadda dalka Jarmalka, wuxuuna ku tirsan yahay xisbiga SPD. marka ninkan siyaasiga ah ayaa wuxuu ahaa nin aad ugu ololin jiray dhanka qaxoontiga, isla markaasna dadka qaxoontiga taageera ama siyaasadda qaxoontiga aadka u taageera ayuu ka mid ahaa. waxa uuna ku dhintay magaalada Göttingen. waa tahay qodobka ugu dambeeya warkeena maanta waxaan ku eegi doonaa jaamacadaha dalka Jarmalka. jaamacadaha dalka Jarmalka ayaa waxa ay shaaciyeen in sanadkan ay duruusta ama waxbarashada jaamacadeed ee sanadkan ay ku dhigi doonaan qaab online ah, iyaga oo aan ardaydu jaamacadda iman doonin, balse iyagoo guryahooda jooga halkaasi jaamacadda ka dhigan doona. sidoo kale warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in jaamacadaha dalka Jarmalka uu hoos dhac fara badan uu ku yimi sanadkan maadaama xaaladdu ay qalalaaso ku jirtay. dabcan maaha jaamacadaha kaliya, meelo fara badan ayay hoos u dhacday, khaasatan iskuullada privatka ah oo kale ama goobaha dadka khaaska ay leeyihiin ayay hoos u dhac ballaaran ku yimi. warbixinta ugu muhiimsan aan muhiimka tahay inaynu sugno waa maalinta Arbacada iyo kulanka Angela Merkel oo qodobo badan lagaga hadli doono. haddaan dib idin xasuusiyo qodobada ay warbaahintu sheegayso in lagu soo hadal qaadi doono, waxaa ka mid noqon doona in dalka bandow la geliyo iyo in kale. waa qodobka ugu muhiimsan ee warbaahinta ay aadka uga hadlaysay, isla markaasna la filaya in kulanka maalinta Arbacada ah aad loogu gorfeeyo. sidoo kale waxaa laga hadli doonaa iskuullada in la xiri doono iyo in kale, qaabka laga yeeli lahaa iskuullada sanadka soo socda. sidoo kale xaaladda coronavirus maadaama ay aad u xun tahay, xilliga lagu jiraan oo qaboobo yahay oo xaaladda kordhinayo, iyaga lafteeda qaabkii wax loo yeeli lahaa ayaa la falanqeyn doonaa insha allah. saaxiibayaal waad mahadsantihiin. war wixii dalka iyo adduunyada ka haynay intaas ayaan kusoo afmeeraynaa. intaynu mar kale meel kale iyo maalin kale kulmi doono, waa Axmed Baqayo idin leh. waa maalinta inoo berriyo ballan, maalinta berriya insha allah haddaan noolahay mar kale ayaan halkan idinkala soo hadli doonaa. wixii war ah maalintaas dhacana waa idinla socodsiin doonaa. haddii aad si toosa wararkayga hore ugula socotay, aad ayaan kuugu mahad celinaya adiga iyo saaxiibada kaleba. haddii aanad ula socon oo aad hadda jeceshahay inaad ka mid noqotid oo aad iga daawanaysid meelaan ahayn pageka aan idhaahda Facebook youtube-ka Axmed Baqaye, waad booqan kartaa. linkiga xagga sare yaalla ayaad tegaysaa, kadibna youtube-ka ayaad halkaasi ka tegaysaa adiga oo subscribe ku dhufanaya, alarmigana furanaya. annaga muhiim ayay noo tahay, adigana lacag kuguma joogto. sidoo kale warbixinooyinka iyo dhacdooyinka sida joogtada dalka Jarmalka uga dhacaya ayaan idinla socodsiin doonaa. maadaama coronavirus soo noqday, xaaladuna ay xun tahay, muhiim ayay ii tahay inaan markasta idinla socodsiiyo wax kastoo cusub iyo sida ay u dhacayaan, si aad u ogaataan isla markaasina aad uga taxadartaan xaaladdu halka ay marayso. waa ballan insha allah intuu corona aanu albaabka ka saarayno si daily ah ayaan halkan wararkeena idinku soo tabin doonaa. haddii waxyaabo degdeg ay jiraan 2 war 3 war maalintii waan idinku soo tuuri doonaa insha allah. markaas si aad gelinka hore, gelinka dambe iyo habeenkiiba aad wararkayga ula socotid, youtube-ka tag, subscribe ku dhufo, alarmigana furo si uu taleefankaaga kugu soo dhaco markasta iyo meel kasta. waa Axmed Baqayo idin leh.